Asalaamu calaykum. Maalin wanaagsan, galab wanaagsan, wax kasta ay kuu tahay wanaagsan. Oo vlog cusub, muuqaal cusub, basan hore idii sheegay, anigii idinku yidhi wiiga dambe ee soo socda waxaan soo gelin doonaa insha Allahu tacaala muuqaal kalen soo gelin doonaa. Maanta waa sabti, hawlo badan baa ina sugaya. Waxaan leeyahay markaa muuqaalka ku soo dhawow baan leeyahay muuqaalkee ku soo dhawow. Waxaan ku soconnaa hadda alaab baan ka dalbaday internetka ma wiigan bilowgiisii alaabta oo markaan cajibin sababta daraaddeed waxaan ku soconnaa in alaabta aynu ku celino meeshii ay ka timi wakaasaan leeyahay markaa tumajarahan ku sii socdaa sababta maanta waa sabti axad waa marka qowle jaaniska la hayo axadda magaaladan sidaan hore idinku sheegay ama wada waad ogtihiinbe waan daraabantahay ama waa xidhantahay magaalada markaa inaan ka faa'iidaysta weeye maalinta sabtida inala socda ma leeyahay markaa dhammaantiin muuqaalkeenana maantana waxaan rajaynaa inaan cajibin doono muuqaalka like sheerta comment midna ka hilmaamay hadduu bilaabay laakiin sababtan uu leeyahay muuqaalka sheerta like midna ka hilmaamay waxa weeye markasta oo aad like-ta ama share samayso waxa uu YouTube ku gudbin doonaa muuqaalkan dad yow kale uu gudbin doonaa marka fadlan baan ku leenahay ka ilaawinta nala socdo leeyahay marka dhammaantiinba asxaabta mar kale waxaan hortaan ogaaday ma taqaanaa weekend dhexdiisa weli waan ogaaday mar kasta oo aad muuqaal iska duubto ama mar kasta oo aad kanta mobilkaaga qaadatid aad kamarad hor istaagto oo mar kasta oo ay kaa baado cabsida ah dadka inaad ka hor hadasho horta midhaas intii aan muuqaalada duubayay ayaan ogaaday intaan ka faa'iiday marka waxaan kula talinayaa qof kasta oo cabsi ka qaba kamarada horteeda ama dadka hortooda ku hadlo insha Allah guri halkan ag maraya quraan baa ka baxaya insha Allah tabaaraka raxmaan marka mar kasta oo aad cabsi ka qabtay inaad dadka hortooda ka hadasho kamaradaada furo ka hor hadal inta practice garay kadibna way kaa bii doontaa insha Allah cabsidaas inaad ka hor hadasho dadka hortooda abidka ma aragtay horta abidka intaad noolayd ma aragtay timajare aad ku socoto intaana timajaraha horta u tegin ay tahay inaad ballan ka qabsato oo aan iska tegi karin marka waddankan aan joogo waxyaabaha qurayga qosliyo weeye inaad timajaraha aad ku sii socoto waa inaad ballan ka qabsataa sababtoo ah waa xaddaaf marka waxaan ka qabsaday shalay waan ballan ka qabsaday waan ku wuli waxaan ku imanayaa markay saacaddu ku beegan tahay shanta meelahaas ku beegan tahay qolay haddii badato hadda wax ka hadhay 5 daqiiqo 6 daqiiqo ka hadhay markaasaan ku imanayaa baan ku yidhi kadibna ballantaasaan ka qabsaday marka wakaasaan leeyahay hadda waxaan ku sii socdaa timajarahayga ku sii socdaa kadib bal waynu eegi doonaa bal maanta muuqaalkeena horta halkuu inuu dhamaado horta hadda waxaan ku faraxsanahay ma taqaanaa imtixaanadii hortii wada gabagaboobay alxamdulillaah sababta daraaddeed muuqaalka waxaad soo gelin kartaa maalin baad soo gelin kartaa laakiin waynu balaankii baa socda sidii muuqaalka loo soo gelin lahaa markaa sidii wiigi walba 2 jeer loo soo gelin lahaa muuqaal ayaa socda waxaad leeyahay markaa dhammaantiinba wakaasaan leeyahay hadda waxaan soo gaarnay raislihii baan soo gaarnay matemajarii baan soo gaarnay madarka inta si timo igu baxan koofiyada ka qaaday kar maayo dad arki lahaydeen timahooda gaabi lahaydeen sababta daraaddeed baa koofiyada loo soo xidho marka waxaan soo gaarnay hadda temajarihii baan soo gaarnay san hore idinku sheegayba waxaad jeclaan lahayd waddankan inaad ka ogaato aad iyo aad ayna ugu muhiim tahay inaad ku qorto commentiga amaba khaanada yar hoose ee lagu talagalay inaad ra'yigaaga ka dhiibato marka wakaasaan idin leeyahay dhammaantiin waxaan ka soo hormaray 6 daqiiqo 5 daqiiqo meelahaasaan ka soo hormaray waan sugayaa ilaa hadda raislihii waxaan hore idinku sheegay raiskani amaba timajarahan aad iyo aad buu fuliya amaba uu buuxa sababta daraaddeed ay tahay mar walba inaad mar ka horeysaad ballan ka qabato wakaasaan idin leeyahay isku sugaynaa ilaa inta dhammaanaya bal soo dhamaysanay umuuriheen wakaasaan leeyahay misaasi weegiin hadda wala soo hagaajiyay qof kale oo eekayde hadda waxaan ku soconaa meeshii laga dirayay ee aan u dirayay baakeedka aan u dirayay ama baan alaabtii aan u dirayay internet ugu dirayay saan noo socdaa wadi muuqaalkeena waa socdaa isku soo noqona markaa asxaabta horta asxaabta midaan idinka daba geeyo waddankan joogo ma arkin channelka kamaradu waxay ka tahay kamaradu waa wax aad looga xaqo sababta daraaddeed inta badan ma soo duubo markan ka soo qaado kale markan hadda ka xeeranayay raislaha kama soo duubin sababtoo ah waddankan aad ay uga xanaaqa markay noqoto dhanka kamarada marka kamarada mar walba waxaan isku dayaa inay kamaradaas aniga kaliyaatay ku koobnaato sababtoo ah waddankan iyo waan isaan hore idinku celcelinayay hore ma idinku sheegaan filayaa in kamaradan ay waddanka tahay tabuu waxa u yaqaanaan tabuu yani wax aan Soomaalida kale weeye sidayna Soomaalida kamarada waxa ma cunayso I don't know haddana kamaradii waxaa laga qabaa cabsi aad u daran marka sababta daraaddeed baan soo duubin markan dadka la hadlayo oo kale marka qofka privacy-giisi oo qof hadduu ku dhaho kamarada ma ogoli haddaan weydiin oo ku ogolaaday
waxaan filayaa inay tahay taasna inay tahay yara dhaqan xumo inay tahay baan filayaa waxyaabaha la yaabis ma aragtay waddankan inta dhex maraysa ma aragtay waxaa jirta marmar la iska soo quba alaabaha qofka waxba ku faleen ma aragtay ama baanu isticmaalay ninka waxaa ka mid ah baaskiilka halkaa taalo kala ka mid baaskiilkaasi way shaqaynaysaa wayna soconaysaa haddana halkaas lagaga tegey marka waa la tuuray waa laga wadaa waxa imanaya ii sheeg waxaa jira sanadkii walba 2 jeer in dadku ay soo qubaan alaabaha aan wax ku faleen kadibna ay dawladdu qaado ama dadka dariiqyada maraya haddii marka alaabtaas oo kale aad ka heshid aad qaadan kartid marka waxaa ka mid baaskiilkaas oo kale baaskiilkaasi midh ma qabto ma qabto haddana waa la iska soo tuuray marka waa 2 jeer marka ka soo qaado kale looxyada oo kale sariiraha oo kale talaagadaha oo kale in la iska soo tuuro kadibna ay dawladdu markaa ay qaado ay geysay meeshii lagu talagalay amaba meeshii qashinka inta badan waxay ku sameeyaan recycling bay ku sameeyaan amaba dib u celin amaba dib bay u soo saareen wixii dib bay u soo saareen hadda noqoto looxyada oo kale alaabta arkaysa inay baro tahay ay arkaysa ayagoo dariiqyada yaala lagu soo tuuro waxaa la soo gaadhay gabagabadii muuqaalkeena la soo gaadhay oo maalin kale muuqaalkan mar kale dub furnay weeye muuqaalkan aad iyo aad buu u dheer yahay waxaan rajeynaya muuqaalkan aad iyo aad uga heshay shaarta like-ta commentiga midna inaad ka helmaamin baan ku rajeynaya hadda waxaa loo socda tiimka loo socdaa baan ku leeyahay marka intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga oo insha Allah aan rajeyn doono inaan soo gelin doono weekend dhexdiisa waxaan idin rajeynayaa dhammaantiinba peace out salaamu calaykum waxaa laga yaabaa inaan muuqaal ka soo duubo markaan jiimka ku dhex jiray laftigeeda aan ku soo diro vloggan dhexdiisa ku soo dhex diro ayaan rajeynayaa